way ka soo toosayaan way ka soo horjeedaan. Axmed Ismaaciil waxa tahay aqoonyahan professor aqoonta ka gaaray inuu noqdo dhiin jaamacadeed. waxaad ka soo jeedaa gobolada waqooyi ee Soomaaliya ee la magac baxay Somaliland. Somaliland muddo 20 sano ka hor ayay tiri waa goosan. markay arkeen dhibaatada koonfur ka socota xaq miyaanay ahayn in ay goostaan oo ay ismaamulaan xaq inay xaq u leeyihiin dad badan baa diidan dad badanna uu ogol yahay fikriin maxaad ka qabtaa adigu arinta gobolka ama wadanka Somaliland la baxay oo anigu aan ka imid adna aad ka timid baan filaya horta waxa weeye in la garto laba amurood mid in la garto waxa ka dhacay wadanka gudihiisa Soomaaliya khaasatan Muqdisho iyo degmooyinka hareeraheega 20 sanadood ee u dambeeyay waxa qoys ku gaarsiin kara inay yihiin waa cadaan lama dafiri karo oo dawaata maanta magaalada Muqdisho aan kaaga sheekeynay ka soo noqday taasi waa koow oo waxyaabo badan oo ay tabanayaan dadka degmada ku nool Somaliland ku nool oo dhaba oo xaq ayaa jira talabaadi waxa weeye wax badan oo ay qabsadeen 20 sanadood oo marka loo eego degmooyinka kale iyo gobolada kale ee wadanka in lagu faanaa oo la ilaaliyo oo mustaqbalka loo hayo waa lagama maarmaan nabadgelyadu ay ugu horeyso inkastoo meelo badan ay hadana jiraan isdiidmo iyo hadal isku duulaya iyo dhiigdaad isu jiro laakiin inta badan Somaliland waxa lagu yaqaanaa meel nabadgelyo ay abuurantay dimuqraadinimo iyo dastuur dhabana ay sameystaan oo ku wada dhaqmaan oo ka jirin degmooyinka kale labadaas waa gar meesha taala haddii ay ku soo noqonayaan wadanka intiisa kale oo aan jecelahay inay ku soo noqdaan wadanka intiisa kalena waxa loo baahan yahay labadaa in la qirto oo la ogolaado iyagana markaa dooda dib loogu celiyo waxa loogu celinayana waxa ugu horeeya waa dadka Soomaaliyeed gobonimadii ay heleen 60kii abuurantay dadkii ugu horeeyay ee calanka taaga ee ku dhawaaqa ee u gabiya ee u heesa ee u sacbiya waxa ay ahaayeen dadkii Somaliland u dhashay laascaanood ilaa saylac iyo inta u dhaxaysa yahay dadkaas u taariikh bay ka tageen raad bay ka tageen aan la aasi karin oo la baabin karin oo ah ummadii Soomaalida in la raadiyo sida iskugu iman karayso labadii markaa isku yimid bal horta iyagii in dhab wax laga dhigo waqtigan adaga ina soo mareen sida looga talaabsanayo dadka ku nool Somaliland qayb bay ku leeyihiin waana laga sugayaa inay keenaan ra'yigii sida looga talaabsanayo waqtigan adaga la joogo talabaad waxa weeye soo nooleynta wada jirkii ummadda Soomaalidu Somali Republic waxaan qabaa waxyaabaha ugu horeysay u baahan tahay waxa weeye taariikhdayna soo martay adagna inta la baaro in si wanaagsan looga heshiyo saamaxaad cusub iyo maxaan ku lahaay dulqaad cusub oo yimaado unionka soo noqonaya ee la dhisayana lagu dhiso cadaalad cusub run cusub karti cusub isogolaasho cusub in lagu dhiso kaalin weyn baana uga banaan dadka u dhashay gobolka Somaliland inay mustaqbalka cusub ee loo baahan yahay in la dhaliyo inay qayb weyn ka qaataan kaalin weyn baa uga baahan gobolka aad u dhalatay ee Somaliland ee awdal waxaa jira dareeno is soo taraya oo ah in rag siyaasiyiin ay dibadda ku sameeyeen awdal state of Somalia dhinaca kale oo bariga waxa laga sameeyay Khartoum state of Somalia arrimahaas fikir sidee aad ka qabtaa horta waa su'aal aad iyo aad u joogta waqtiga kan anu horta Awdal state kama imanay waxaan ka imid magaalada Gabiley la yiraahdo hadii Gabiley lagu daray Awdal state waa okay way laakiin magaalada Gabiley la yiraahdo ayaan anigu ka imid oo jad dadkii dhalay aniga halka awowga iyo macooyooyinka iyo abtiyaasha iyo adeeraday halkaas ay ku aasan yihiin Gabiley inta noolina Gabiley bay degan yihiin taasi waa koow oo ana ismacnaynaya talabaadi waxa weeye anigu shakhsiyan ma qabo in Awdal state iyo Khartoum state loo baahan yahay waqtiga kan ma qabo anigu
dadka labadaa degmo ku nool ee somaliland xaqa ka maqan hadduu jiro iyo waajibka lagu leeyahay inay ka soo baxaan labaduba waxay dhigayaan in laga shaqeeyo danta guud ee horta gobolkan somaliland anigu waxaan ku dadka aada ugu dhiirigeliya in loo baahan yahay somaliland sidaa in laysku hayo ee aan la kala furfurin waayo haddii sidaa loo kala furfuro beritaay dhici kartaa awdal state dadka ku dhawaaqay inay arkaan iyagoo gudahooga sii kala tegayo oo haddana awdal state magacyo kale lasoo bixiyo o lasii kala sarrifo sidaasaa dhici karta khaatumana sidaas way ku dhici kartaa marka waxaa ka weyn labadaba hargeysa siyaasadda taalena ka weyn waxa weeye gobolka somaliland si xaq ku jirta oo vision dheer leh oo karti leh in la isku hayo ya dabadeetana la galo doodii ahayd ummadii soomaaliyeed ee republica ahayd jamhuuriyaddii sida loo soo celinayo halkana waataan kuu sheego aan ku idhi dadka ku nool gobolka somaliland ama degmada somaliland qayb weyn ayaa uga bannaan kartidoodana waa loo baahanya